dee booqashadeedu dhinacana magaalada laga tusaya oo wax inaan bartona waa loo jeedaa xaggan aan joogno waa iskool weyn oo taariikhiya taariikhda dhanka cilmiga aan wala yaalin cilmigii ilaa 100 sannadood horteed ilaa maanta ardayda markay imaadona si taariikhda cilmiga saynska u arkoon fahmoon iminka waxaa iga dambeeya waxa weeyaan dayax gacmeed marka taariikhda si fiican loola socdo taariikhda cilmiga meel ba la gaadhaa laakiin Djibouti maxaa jira Djibouti xaggan markaa aragtid sidii dhalintooda sidii u xanaanayoon tacliintooda sidii uga warhayoon Djiboutina jaamacad baa la sameeyey oo xaggaa lagu faane runtiina jaamacaddii maanta ahaan jaamacaddii aad bay u liidataa lacagta budget waa kuma jiro lacagta waxaa laga siin jiray si qarsoomiya telecommunicationka sidii boorka Djibouti hoos bay u dhacdhacaysa dee qiimadiiba imika lacagtii la siinaya lagu soo iibiyo miisas iyo kuraasi iyo xitaa bibliotekna male buugag ardaydu ka egtoon wax ku faa'iideysan professorku markuu jaamacadda u dhigo waa ina buugag eegtid fahamtid oo adigo baarisna gashid baarisna waa taadayga xagameed adduunka gaarsiisay reer Djibouti waan gaari lahayn hadduuna tuuga uu lacagta cunin haddii lacag ku filan waddanka ardayda la siiyo way ku fiicantay ardaydii yaraanta iskoola baa jira kuraasi ma jiro daasanido ay dul fadhiistaan jaamacadiina sanada soo socota waxaa lagu yidhi kaabaa u soo socota marka adeero ma ninkaabaa ogolaanaa ninkaabaan iska dul qaadanaa may ninkaa waxa weeyaan waa inaa la kashifo la mudaharaado jaamiciintana eeguna wax iska celiyo runta u sheegoon lama cabsado nin dhiidin ma dhirgo nin dariiqa ka hadlaysiin guul ma gaadho yaanu intaaba hota oran lahaa hadhowna meelo kalaan sii marina la socodnoodno waa kaadee jaamacad xaggan waa musee weeyaan taariikhdii odan laisku wada keenay anagana maba haysano musee hijiyo dhaqankeena laisku keeno maba haysano meel bugag arshiiba oo taariikhdii Djibouti laga arki karo kulli walqadii hore taariikhdii hore way gubeen waayo waxay rabaan taariikh cusub oo Ismaaciil Cumar uu noqdo ninkii keliya ilaahigii keliya isagaa dhahay ilaah baa ahayd astaghfirullah marka reer Djibouti oo sare kaca anuu hota reer Djibouti baan la hadlay walaaldiin reer Kanadana dee bugag iyo waxaa jaamacadda hadday karaysiin Djibouti ba ku caawiya